Neanderthal midida ciidanka Swiss ayaa laga helay godka Belgian. Neanderthals oo noolaa 1,3 oo sano ka hor waxay qalabkooda ka farsameeyeen lafaha mid ka mid ah ugaarsigooda ugu xun. Dhab ahaantii, ma aha oo kaliya inay qalabkooda ka sameeyeen lafaha libaaxyada godadka iyo godadka godka, dadka deggan godka Saladina ee hadda Belgium waxay sameeyeen la qabsiga qalabkooda taasoo u ogolaatay in dib loogu isticmaalo ujeedo ka duwan naqshadii hore. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Kulanka Faunal godka wuxuu bixiyaa caddaynta ugu horeysa ee qalabka lafaha ee laga sameeyey hadhaaga libaaxa godka ayaa qoray koox cilmi baarayaal qadiimiga ah oo uu hogaaminayo Gregory Abrams oo ka tirsan jaamacadda Ghent ee Belgium. Tibia si ula kac ah ayaa loogu farsameeyey qalabyo kala duwan oo markii hore u adeegayay sidii qalab dhexdhexaad ah ka hor inta aan dib loo soo celin sidii dib u dhaqaalayaal. La xiriira, libaaxan godka qaboojiyey si wanaagsan ayaa loo ilaaliyaa waxaad weli arki kartaa beeshiisa. 4 qalab ee lafaha laga helay godka Saladina. Qalabka waa la soo koobay si uu u muujiyo nabarada caadiga ah ee loo isticmaalo qaabaynta dhagaxa ama dib u taabsiin. Neanderthals, nooc hominid ah oo si dhow ula xidhiidha Homo sapiens, waxay ahaayeen kuwo caqli badan. Ma aha oo kaliya inay awoodaan inay farsameeyaan qalab iyo teknoloji la faahfaahiyey, waxay ahaayeen kuwo si qani ah wax u curiyey, iyaga oo isticmaalaya xirfadahooda si ay noloshooda ugu qurxiyaan farshaxan qurux badan. Waxa kale oo ay ahaayeen kuwo aad la qabsan kara, awoodna u leh in ay beddelaan xeeladahooda badbaadada si ay uga faa'iidaystaan inta ugu badan ee agabka ay heli karaan. Wax badan kama naqaano Neanderthals, qayb ahaan sababtoo ah waxay noolaayeen waqti dheer ka hor. Neanderthals waxay dabargo'een ilaa 4 oo sano ka hor. Inta badan dhibta noloshooda waxay u dhintaan burburka waqtiga, qudhunka iyo nabaad guurka. Kaliya meelaha la ilaaliyo sida godad ayaa waxaa ka badbaaday alaabtii Neanderthal oo si qoto dheer loogu aasay lakabyo wasakh ah si ay u qodaan saynisyahanada aadanaha kumanaan sano kadib. Godka Saladina waa meeshaas oo kale. Halka, 2 lakab oo kala duwan ayaa ilaalinaya daanka soo dhacaya 4 oo sano oo deegaan ah. 1 lakab oo ku taariikhaysan qiyaastii 3 oo sano ka hor, cilmi baarayaasha qadiimiga ah waxay heleen qalab badan oo u badan dhagax ah oo muujinaya dhuumaha wax soo saarka qalabka. Dhagax yar ayaa laga helay mid ka mid ah lafaha. Isku soo wada duubo waxaa ka mid ah tiro lafo ah oo ay ku jiraan 9 lafood oo loo isticmaali lahaa dib u taabsiinta farsamada samaynta dhagaxa. Lafaha intooda badani waxay la socdeen tamoys rubi abra in Neanderthals ay ugu horeyn ugaarsadeen, laakiin dhowr Abrams iyo asxaabtiisa hore loo hubiyey waxay ka yimaadeen godka Ursus Spelaeus. Hadda waxay ogaadeen, iyada oo loo marayo falanqaynta borotiinka, in mid ka mid ah kuwa la sheegay in godku leeyahay lafo iyo dhowr qalab oo kale laga sameeyey lafaha libaaxyada godka Panthera spelaea. Cilmi baadhayaashu waxay si taxadar leh u baadhaan lafahan, waxaanay ogaadeen in si badheedh ah loo qaabeeyey qaab qalab ahaan loo isticmaali karo. Dhab ahaantii, cilmi baarayaashu waxay awoodeen inay hubiyaan in dhammaan 4 qalab laga sameeyey tibia libaax godad isku mid ah. Runtii, 2 ka mid ah qalabka ayaa xitaa si fiican isugu wada habboon. 2 qaybood ee tibia dib loo hagaajiyey. Dhammaadka basal si ula kac ah ayaa loo qaabeeyey dib u habaynta 2 geesoodka ah, taasoo keentay qaab googo'an oo ka soo horjeeda waxa u muuqda inuu yahay kabo jajaban oo ka soo jeeda qaybta abical ee bannaan, ayay ku qoraan warqadooda. Qaybtan lafta ah waxay u shaqayn kartaa sidii qalab lafaha dhexe, sida jeexjeex. Lafahani waxa kale oo ay tustaa calaamado dhalaalid, maarayn soo noqnoqda. Qaabka dhalaaliddu waxa uu soo jeedinayaa qaabka loo maareeyey lafta, laakiin suurtagal maaha in si sax ah loo sheego waxa loo isticmaalay ka hor inta aan dib loo soo celin. Si kastaba ha ahaatee, tibia dib loo habeeyey ayaa si kastaba ha ahaatee muujinaysaa sida ula kac ah ee hawshu u ahayd, waxayna tusinaysaa heerka daryeelka ee Neanderthals ay ku farsameeyeen qalabkooda. Ma ogaan karno, iyadoo lagu salaynayo caddaymaha la hayo, sida saxda ah ee dadka godka ku noolaa ay u yimaadeen lafaha libaax, in libaaxa la soo xaday ama la ugaarsaday. Waxaa hubaal ah in 2 nooc ay lahaayeen wada noolaansho aan fiicnayn iyo xiriir adag. Si kastaba ha ahaatee, haddii la ugaarsado ama la xado, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka qalfoofku wuxuu soo jeedinayaa heer sare oo la qabsi ah iyo faham xoog leh oo ku saabsan sifooyinka walxaha lafaha ku lug leh. Helitaanka Saladina ee dib u hagaajinta lafaha ee laga sameeyey libaaxa godka ayaa ka dhigan helitaan aan caadi ahayn oo ku dhex jira diiwaanka qadiimiga ah ee Paleolithic. Ma aha oo kaliya waxay muujinaysaa awoodda Neanderthals si ay si xushmad leh uga faa'iidaysato khayraadka la heli karo, oo ay ku jiraan kuwa laga soo qaatay xayawaanada waaweyn, laakiin sidoo kale waxay ka tarjumaysaa awoodda ay u leeyihiin inay u beddelaan hadhaaga qaab dhismeedka kala duwan, qoraal cilmi baariseed oo kala duwan.
Marka laga soo tago naadirka ay leeyihiin, artifactskan ayaa keenaya dib u qiimaynta Neandertal isdhexgalka leh xayawaanno waaweyn, oo ku nuuxnuuxsaday in xayawaankani aysan ahayn kaliya tartamayaasha deegaanka laakiin waxay sidoo kale u adeegi karaan ujeedooyin macquul ah ee Neandertal lifeways. Natiijooyinka waxaa lagu daabacay warbixinnada sayniska.